halkan waxaa taagan marwada Soomaaliyeed ah Ilhaan Cumar. waxay goob fagaaraha ka sheegtay in dadka qaar ay mar walba u soo diraan hanjabaad, waxaana ay dadka dhageysisay cod soo gaadhay moobilkeeda. ninkaasi waxa uu leeyahay waan ku dilayaa, waxaana Ilhaan Cumar uu kula hadlayaa hadallo badan oo uu ku caariyo. Ilhaan Cumar markay codka dadka dhageysisay waxay dadka u sheegtay inay mar walba la kulanto khatar noocan oo kale ah. waxay tiri waxyaabaha la igu dilay waxa ka mid ah inaan mar walba runta ka hadlo oo waliba aan sheego meelo fara badan. waxay tiri intaan adduunkan joogo mar walba waxaan ka hadli doonaa runta oo cidna u joojin maayo. waxay tiri mar walba wax la ula kacaa cunsuriyad, laakiin waxaasi ma noqonayaan kuwa aniga i kara ee inta aan joogo adduunkan waxaan ka hadli doonaa xaqa iyo runta. si walba ay tahay waynu u adkaysan doonaa wax walba oo dusheena ku dhacaya, waxaana muhiim ah wax walba inay noqdaan kuwaan anigu idin huro maca haddii ay noqoto naftayda. way jiraan hanjabaado fara badan oo meelo kala duwan iga soo gaadha, laakiin waxaas waxay noqon doonaan kuwa aynu iska kaashanno, kuwa aanu Ilaahay waxba inagu yeelin. runtuna waa ay socon doontaa, aniguna aamusi maayo intaan adduunkan joogo. sidaa waxaa tiri marwada Soomaaliyeed ah Ilhaan Cumar. waa geesiyad runtii marka ay hadlayso ay dadkoo dhan dhageystaan warkeeda. marka ay hadlaysana waxa ay ku hadlaysaa waa waxay qaataan saxaafadaha adduunka oo dhami, waayo waxa la ogyahay wax walba ay ka hadlayso inay tahay run oo aanay ku jirin wax gabasho ah. halkan waxaa taagan fanaanada caanka ah ee Rihanna. bal ka waran haddii fanaanad weyn oo caanka dunida ay waddankeeda geyso xorriyad ama aqoonsi. waxaa la sheegay fanaanadani in waddanka ay ka soo jeedo ee Barbados ay keentay xorriyadda ama aqoonsiga. Rihanna waxaa loo aqoonsaday halyeeyad qaran, waxaana u aqoonsantay madaxweynaha waddanka oo iyaduna dumar ah. fanaanada Rihanna waa mid ka mid ah dadka ugu caansan dunidan aynu ku noolnahay, laakiin waxaa la sheegay waddankeedan sidii uu xorriyad u heli lahaa waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushay, waxaana ay albaab walba ku garaacday sidii ay dadka ugu sheegi lahayd dunidan ay ugu soo bandhigi lahayd waddankan Barbados. walow waddankan uu yahay waddan gaala ah oo 70% ay yihiin Kristan oo aanay ku noolayn cid Muslim ah, haddana waa waddankii ugu dambeeyay ee dunida xorriyadda qaata 2 casho ka hor. waxaana la gumaysanayay in ka badan 50 sano, waxaana maamulayay boqortooyada Ingiriiska ee dalka Great Britain. filimada ay Soomaalidu matalayso ayaa adduunka xoog ugu soo badanaya. filimkan magaciisu waa Ayaan leh, waxaa lagu matalay caasimadda Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degto ee Eastleigh. filimkan waxaa la bilaabay 2018 hakad ayaa ku yimi 2020. waxaa la sheegay filimkan inay ku dhacday qarash la'aan, waayo waxaa maalgelinayay kumbaniyo ama shirkado Soomaalidu ay leedahay. lacag ahaan waxaa ku baxday $1 milyan wax ka badan. markii uu hakadku ku yimi filimkan, dadkii matalayay waa ay kala tageen, haddana markii qarashka loo helay dib ayaa la iskugu soo celiyay. waxaa la sheegay dadkii dhuudhuubnaa inay dhaaxeen oo haddana ay waqti ku qaadatay in dadka dib loo hagaajiyo jirkooda. dib ayaa loo bilaabay. sanadkan aynu ku jirno 2021 ayuu filimkani dhammaaday. xayeysiiskiisu waxa uu soo galay baraha bulshada, waxaana la sheegay filimkan Ayaan leh inay baayaceen shirkadda weyn ee filimada ee Netflix. waxay noqotay filimkii ugu horreeyay ee shirkad Soomaalidu ay leedahay ay maalgeliso, waxaana ay noqotay filimkii ugu horreeyay ee $1 milyan wax ka badan ay Soomaalidu ku jisho. filimkan waxaa soo saaray khabiir Soomaali ah oo ka ahaa director. filimkan waxa uu ka hadlayaa qaabka Al-Shabaab ay Soomaalida ku dhex tahay, waxaana uu ka hadlayaa waxyaabo fara badan oo xaqiiqa. haddii aanay Soomaalidu filimada iyaga ka hadlaya aanay iyagu matalin, waxay noqonayaan kuwa been laga sheego. laakiin haddii ay Soomaalidu matasho film walba oo Soomaalida gudaheeda ka hadlaya, xaqiiqda ayuu u dhowaanayaa, ama waxa uu noqonayaa mid dhaba oo si toos u abaaraya Soomaalinimada. waxa uu noqday filim cajiib ah oo ay dadku badankoodu la dhaceen